hoosiya kan dhexaya sakada xoolaha nool ka qaybiyay degmooyin iyo deegaano hor leh kuwaas oo dad badan ka faa'iideysteen. Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya. Weli waxaa wilaayaadka Islaamiga ah ka socda qaybinta sakada xoolaha taasoo la siinayo dadkii mutaystay. Degmooyin iyo deegaano ka kala tirsan gobolada Shabeellooyinka ayaa laga qaybiyay sakada iyadoona ay ka faa'iideysteen boqolaal ruux oo isugu jira fuqara iyo masaakiin. degmooyinka iyo deegaanadaas waxaa ka mid ah Mahaday, Aadan Yabaal, Ruunirgood, Janaale, Tooro iyo Goobaale oo ka kala tirsan wilaayada Islaamiga ee Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale waxaa sakada laga qaybiyay deegaano ka tirsan gobolada Shabeellooyinka. Dad aad ugu baahi qabay ayaa la siiyay sakada kuwaas oo aad ugu farxay sakada ay qaateen. Abdullahi Maxamed Dawla leeyahay gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Mahaday maanta wilaayada Islaamka ayaa isitay inay tabarucaada oo lagu talagalay dadka masaakiinta marka waa ku maadsan islaamka dhammaan korlaada imisa lagu siiyay adiga janne dadka ruuxaana ku maadsan nagana dareegay waa farax alxamdulillah tabaawli oo madini oo maanta alxamdulillah Muxtar Maxamed Jimcaale oo degmada Mahaday maanta waxa ka jirto dadka oo masaakiinta lagu qaybiyo waa sakaawaad ka jirto muslimiinta Soomaaliyeed adiga labaatan soo gaartay ilaaha ku wadsay ilaahana waa iskale marka walaalahay waa mahadsantaa. Degmooyinka Mahaday iyo Ruunirgood oo ka tirsan wilaayada Islaamiga ee Shabeellaha Dhexe ayaa ka mid ah goobaha sakada laga qaybiyay. magacayga Cabdiraxmaan Ahmed Maxamed waxaa jooga gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Mahaday waxaa jira howlihii sakawaadka oo dadka aqliga laga qaaday maadaama qorada lagu helayo ayaa halkan lagu qaybiyay aad iyo aad u faraxsanahay oo mahadnaqayna ilaahay mahad iskale magacayga Xuseen Cali degmada Ruunirgood suula waxay hore oo sakawaad oo masaakiin la siiyay oo ka furay maxaa lagu siiyay adiga ثانية تروي هي هذا في عيها هذا كمادينا مركورة مركز دبوا وحنو هذا ولينا يا تذكر كسوة ديجي وبس كمان كان مقابل الولي وحركات الشباب الجاهلين سلا سيد جوكا. wilaayada Islaamiga ee Shabeellaha Hoose ayaa ka mid ah goobaha laga qaybiyay sakada waana kuwan qaar ka mid ah dadkii la siiyay sakada oo ka warbixinaya shucuurtooda. عيدا يوسف مدي أبيك وحاجة واجد صومالة حقا وإذا شجع لها يسيف أنا كنت دعية قالوا إلهي عزيزي ما مقص إلهي كوريالا وصنع الدعية وأنا خالي سنة ومالا يوسف أحمد كورة اللي راولا حقا يوسف لو جيل إلى أقوم أكثر رأسي إلى أسر ريسا هاي ما من الله أدله إلهي عبشديس عندي جيس وكله لك الدين لك عيسى يا ولد كل هذا الشيء عند الله اللي وقع عبد إلهي عند الناس اللي ودي اللي هذا الأقوى أنا أصير تجارة أني عدو إلا مسلمين تنكر الله خليك وكنت عين لله. degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadka Islaamiga ah ayaa laga qaybiyay sakada taasoo ay ka faa'iideysteen boqolaal ruux oo isugu jira fuqara iyo masaakiin.